Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalka Soomaali Kartoon meel kasta ay joogtaan dunida iyo dacaladeeda. Maanta waxaan idiin wadnaa qiso ku cibro qaadasho mudan, balse intaynu u guda gelin qisada waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalka ku soo biirtid haddii aadan ka mid ahayn oo aad subscribe saartid gambaleelka furitid si ay kuu soo gaaraan wax walba aan soo gelino. mahadsanid. hooyo waayeel ama duqa ayaa hadda ka hor tiri waxaan lahaa 3 wiil waana ay guursadeen saddexdoodaba. maalin maalmaha ka mid ah ayaan booqday kii weynaa waxaana u sheegay inaan isaga la joogayo caawa. subaxii markii la gaaray ayaa waxaan ka dalbaday xaaska wiilkayga inay ii keento biyo aan ku weyse qaato. waan weyse qaatay waana tukaday. biyaha intii hartayna waxaan ku daadiyey sariirtii aan xalay ku seexday dusheeda. markii ay ii keentay sheeha ayaan waxaan ku idhi, gabadhaydii dadka marka ay duqoobaan sidan ayay noqdaan. waa ay qaylisay waana ay xanaaqday, waxa ayna i maqashiisay hadallada kuwooda ugu xunxun. waxa ay ii sheegtay inaan dhaqo oo aan qalajiyo mar dambena aan sidan oo kale samaynin. waxa ay dhahday hooyadii duqda ahayd waxaan gaaray inaan qariyo xanaaqayga. maradii firaashka ahaydna waan dhaqay oo waan qalajiyey. waxaan aaday guriga wiilkayga dhexe si aan u seexdo. waxaan ku yidhi caawa idinka ayaan idinla seexanayaa oo halkan ayaan ku hoyanayaa. subaxii markii la gaaray ayaa gabadha uu wiilkayga qabo waxaan ka dalbaday biyo weyse ah waana weyse qaatay kadibna waan tukaday. biyihii harayna waxaan ku daadiyey sariirta aan ku seexday sidii aan horey u soo sameeyey oo kale. gabadhii uu qabay wiilkayga dhexe waa ay qaylisay, buuq ayayna igu kicisay, waxayna ii sheegtay ninkeeda oo ahaa wiilkayga. lama aanan hadlin, xitaa wax yar oo xanaaq ah uma aanan muujinin. isagana ima uusan dhihin hooyo waa khalad waxa ay samaynaysa xaaskayga ee raali noqo. waan ka tegay oo waxaan aaday wiilkayga saddexaad oo ah kan ugu yar. waxaan u sheegay inaan la seexanayo caawa. xaaskiisa ayaa waxaan ka dalbaday biyo weyse ah kadibna waan weyse qaatay oo waan tukaday. ugu dambayna biyihii waxaan ku daadiyey sariirta dusheeda. markii ay shaah ii keentay ayaan u sheegay wixii dhacay oo ahayd sidii aan horay ugu soo sameeyey labadayda wiil xaasaskooda oo kale. waxay igu dhahday hooyo waxaan dhib ma lahan oo waa da'da qofka markuu weynaado. hooyo wax badan ayaan ku soo hurinay dhabteeda iyo maryaheeda waxaana waa caadi. intaas kadib waxa ay qaaday dharkii waana ay hagaajisay oo waa ay qurxisay meeshii aan biyaha ku daadiyey. waxa aan dhahay gabadhayda waxaan leeyahay saaxiib waxayna ii soo dhiibatay xoolo si aan ugu soo gado dahab. mana aqaano qiyaasta laakiin waa adiga oo meesha taagan oo isku cabir ayaa tihiin ee ma isiin kartaa cabirka gacmahaaga si aan uga qiyaas qaato. hooyadii waxay aaday suuqa waxaana ay lahayd xoolo badan. xoolaheedii oo dhanna waxay ku soo iibisay dahab. gurigeeda ayay isugu yeertay carruurteeda iyo xaasaskooda dhammaan. waxa ay soo saartay dahabkii waxayna uga sheekaysay in ay biyo ku shubtay sariiraha ay ku soo seexatay oo aysan ku kaadinin sidii ay iyaga u malaynayeen. dahabkii ayaa waxa ay u xirtay xaaska wiilka ugu yar waxa ayna dhahday waatanaa gabadheeda oo aan ku badbaadayo marka aan sidan ka sii duqoobo inta nolosha igaga dhimana aan la joogi doono. labadii xaas oo kale waa ay naxeen oo waa ay argagaxeen waxa ayna ka shallaayeen wixii ay sameeyeen. horaa loo yidhi wanaagga waxaa lagu gudaa wanaag.